waxaan u wanaagsan asxaabteeda qaaliga marka la barnaamijyadeena Excel-ka waxaan inta tusayaa caawa barnaamij Excel oo kii hore isla Excel-ka uun laakiinse in yar ka yar duwan ayaan caawa tusayaa qaabkii Excel-ka Microsoft Office-ka aan hadda ka hor aan ku shaqaynay qaab ka yar duwan ayaan halkan idinku tusayaa markaas waxaan rajaynayaa inaad ila socon doontaan marka koowaad waxaad soo fureysaan browserkiina Chrome-ka aad soo fureysaan waxaad ku qoraysaan Gmail-kiina aad gelinaysaan Gmail-kiina ayaad gelinaysaan marka hore Gmail-ka markuu sidaa idinku galo Gmail-ku faa'iidooyin badan ayuu leeyahay sida caadiga ah oo dadka badankoodu ayna ka warqabin ayaa jiro markaas faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah marka tusaale markuu sidaas uu kugu galo baa inbox-kaagu yimaado halkaas yar baad galaysaan afar dhibcaha ay ku qoran yihiin sagaalka dhibcood ayaad klik leedihiin markaas waxaan oo dhan waa barnaamij faa'iidooyin leh tusaale haddaad drive-ka inaad barnaamijyo ama inaad documentkaaga aad ku kaydsato u baahan tahay halkan aad gelinaysaa meetkan oo kale waa sida zoomka oo kale waa la iskula sheekaystaa waa lagu kulmaa news oo kale uu leeyahay hoos markaad u socotaan iminka tusaale markaad hoos u socotaan buugaag waaweyn markaad inaad halkan kusoo upload garaysaa aad rabtay halkaa galaysaa blogger yoloso maxaa la iminka contactigaagii oo kale iminka tusaale contactiga igu jiro telefonkayga halkan waan ka helayaa sababtoo ah halkan ayay igu save garaysan yihiin halkan ayaan ka helayaa ka dhigan hangout baa jiro dokumentiyada waaweyn oo kale iminka tusaale kan waa buugaag kan waa dokumentiyaal iminka saas darteed iminka halkan barnaamijyadan mar kalean dib uga sheekayn doonaa laakiinse waxaan caawadin tusayaa qaabkan excel kale oo kii hore aan ahayn aan halkan u helan iminka halkaas spreadsheetkaas oo kale ayaan double click leenahay double click markaan dhahna kadib wuxuu noo soo furayaa spreadsheet caadi oo excelka caadiga u dhigmo tusaale waan arkaynaa halkan aan ku arki doonaa wuxuu u dhigmaa excelkii caadiga ahaa markii maadaama ay tahay markii inoogu horreysay iminka tusaale markii ugu horreysay maadaama ay tahay halkan aan kala gelin hadda horey ugu soo shaqaysay iminka tusaale kuwan waa barnaamijyaha aan horey ugu shaqeeyay weeyaan oon maxaa la dhahdaa aan halkan aan ku tusayo qof wey markaas halkan ayaad galaysaan blank halka ay ku qoran tahay double click leediin ama click leed leediin waad iska sugaysaan marka wuxuu idin furaya haddii la yidhaahdo pagekan cusub ayuu idin furaya pagekan markuu sidaas idinku furo kadib iminka tusaale waxaan soo qaatay hawl maalmeedkan oo kale ayaan soo qaatay hawl maalmeedkan oo kale waxaan qaban lahaa maanta ama to do listiga ayaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan excel caadi aan ku soo qaatay maadaama inaan laba jeer inaan qoro ayaan diidanahay halkan lafteeda waa lagu qori karaya paste ayaan halkan ku odhanayaa paste markaan ku dhahay kadib halkaas sidan ayuu iigu soo baxaya ninka tusaale markaan halkaas aan imano waxaan u baahanahay inaan check garayno waxaan qabanay maanta hawl maalmeedkeennii maanta hawshii noo ballaansaneyd wixii aan nooga qabsoomay wixii kale inaan halkan ku qabano ayaan u baahnay marka tusaale waxaan imanaynaa insert ayaan imanaynaa halkaa insert ay ku qoran tahay marka hore halkan aan wada dooranaynaa ilaa hoostaan dooranaynaa insert ayaan imanaynaa insert markaan imano kadib halkan ay ku qoran tahay checkboxigaan click leenahay checkboxigu noo sameynaya si checkboxigan click uu noogu noqdo halkan aan imanayna marka hore click uu noqonaya laakiinse shaqadii uu qaban lahaa halkan nooguma qoray halkan aan imanayna if baan leenahay equal to if baan leenahay hadday kani uu run yahay baan leenahay equal to true hadduu u dhigmo uu sax yahay iiga dhig baan leenahay dhan iigu qor baan leeyahay hadduu sax ah oon dhameeyey hawsha aan dhameeyey dhan iigu qor haddii kale baan leenahay coma double quotation baan leenahay pending ii geli baan leenahay oo weli hawsha lama qabanin iiga dhig baan leeyahay kadib enter ayaan leenahay enter markaan dhahna kadib pending buu soo saaray hoos baan usoo jiidaynaa ilaa oo aan ku dhamaysana formulooyinta noogu joogo dhan aanu ka gaadhin saasaan hoos ugu soo jeeda iminka haddaan maadaama nidhi tig markaan saaro kaas waan dhameeyey tig ii saar dhan buu halkan u bedelay iminka tusaale enter haddaan idhaan dhan buu leeyahay halkan kan kale tig markaan saaro dhan buu leeyahay waa qabadkaa waa la dhamaystiray iyuu leeyahay isagaa ku shaqeyna tig markaad tidhaahdid dhan buu leeyahay tig markaad tidhahd dhan buu leeyahay sidaana loogu shaqaysan karaa iminka sidaas markaad ugu shaqaysid kadib waxaad doonaysaa tusaale waxaad u baahan tahay inaad save garaysatid waxaad doontaa ku save garaysan karaysaa import baad leedahay oo wax kale waad kusoo keeni karaysaa page cusub aad iminka tusaale anaga maadaama qaabkii loo save garayn lahaa aan u jeedno hoos ayaan u degaynaa download baan raadinaynaa meel ku qoran waatan download baan leenahay maxaan ku download garaysanaa ma excel baad u baahan tahay ma document caadi oo word ama sida word oo kale ma pdf oo marka tusaale haddaan dhahno san leenahay kadib export ayaan leenahay export markaan dhahno halkan uu noo keenaya waa kan downloading buu leeyahay halkan uu noo keenay waa kan iyadoo pdf uu halkan noogu soo dejinaya ama noogu soo download gareen double click markaan dhahno
hawsheena waxqabadkeena iyadoo PDF ayaan haysanaa. Haddaan doonayno inaan print garaysano halkan aan leenahay. Haddaan qof kale inaan la wadaagno doonaynona waan save garayn karaynaa halkan intaan calaamadda download-ka nidhaahno amaba se halkan aad ku save garaynaysaa desktop-kaygii baad leedahay save ayaad leedahay. Qaabkan ayaa loogu shaqaysan karayaa adigoo isticmaalayo Excel-ka amaba se spreadsheet-ka Google-ka ayaad wax walba ku qabsan karaysaa. Waxaan u maleynayaa asxaabtayda qaali inaad fahamteen. Si barnaamijyo kale aad ula socotaan fadlan follow soo dhawaad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin goor walba aad joogtaan khayr ayaan idin dhaafay dhammaantiin.